وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول على أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All of my students, how are you? Welcome with new lessons. Okay, insha Allah waxaynu halkan ku duubi doonaa casharo cusub oo dhanka sheekooyinka iyaguna la xiriira. casharadaasi waxay naga caawin doonaan waxyaabo fara badan oo aynu u baahannahay sida inaynu ereyo fara badan ka baranno. sidoo kale waxay naga caawin doonaa readingka dhanka akhriska in order to learn English language easily. Saynu luqadda Ingiriisiga ugu baran karno si fudud akhriska ayuu naga caawinayaa. waxaad isku dayi doontaa ardayo insha Allah inaad ka jawaabtid su'aalaha iyaguna ka dambeeya ereyadaasina aad xafidid macnahoodana qoratid. sheekadeena u horeysa maanta waxay ka hadli doontaa Maria Gomez ay ka hadli doontaa gabadha leedahay. Maria Gomez was born in Peru. Maria Gomez was born waxay ku dhalatay in Peru, magaalada Peru bay ku dhalatay. She grew up waxay ku kortay in a small village, tuulo aad u naqan. She grew up waxay ku kortay in a small village, tuulo aad u yar. She began waxay bilowday school dugsigeedii when she was 6 years old, markay ahayd 6 jir. She began waxay bilowday school dugsiga when she was markay ay ahayd 6 years old, 6 jir. She went to waxay tagtay elementary school, dugsi hoose ay tagtay, elementary hoose. But laakiin she did not go to high school. laakiin may tegin school ama dugsi sare may tegin. She did not go to high school, dugsi sare may tegin. Her family waa qoyskeegu was very poor, aad bay u faqiir ahaayeen. And she had to go to work. waxayna noqotay inay shaqeyso. waxayna noqotay inay shaqeyso when she was 13 years old, markay ahayd 13 jir. markay ahayd 13 years old, da'da markay gaadhay ayaa waxay noqotay inay shaqo gasho. She worked on assembly line. waxay ka shaqeysay assembly line, waaxda soo saarka in a shoe factory, warshada kabaha. waaxda soo saarka ee warshada kabaha. When Maria was 17 years old, markii Maria gaadhay ama ay ahayd da'da 17 jirka. Her family waa qoyskeegu moved to waxay u guureen United States. Her family waa qoyskeegu moved waxay u guureen United States, Mareykanka, America. First ugu horeyn they live in waxay ka bilaabeen noloshoodii in Los Angeles, magaalada Los Angeles bay ka bilaabeen. They live in waxay ku noolaadeen Los Angeles, magaalada Los Angeles. And then moved to waxay u guureen San Francisco, magaalada loo yaqaan San Francisco ayay u guureen. When markii Maria arrived ay timiday. markii Maria arrived ay timiday in the United States, America, Mareykanka. She was not very happy, kumay faraxsanayn. She missed her friends back in Peru. She missed waxay u darsatay her friends asxaabteedii back in Peru ay kaga timiday Peru. She did not speak kumay hadlayn one word hal erey of English oo Ingiriisiya. She did not speak kumay hadlayn one word of English hal erey oo Ingiriisiya. She began waxay bilowday
to study inay barato English luqadda Ingiriisiga at night habeenkii. And she worked in a factory waxayna ka shaqeynaysay in a factory warshad during the day maalinkii. And she worked waxay ka howlgashay ka shaqeynaysay in a factory warshad during the day maalinkiina. Maria studied very hard. gabadhan Maria studied very hard. aad ayay u dadaashay. very hard study waa baraso. aad ayay wax u baratay waa u dadaashay. And she got a good job waxayna heshay shaqo wanaagsan as a secretary xoghayn ayay heshay. shirkadii xoghayn ayay ka heshay ama warshadii. Maria still studies weli ka hadda waxbay barataa at night habeenkii. But laakiin now imika she studies waxay barataa advertising company someday. waxaa la yidhaahdo ama xayeysiiska advertising company xayeysiinta shirkadda someday maalinki. And write commercials how to write iyo sida loo qoro commercials articles on commercials maqaalada la xiriira ganacsiyada waayo commercials kuwa related with commerce trade ganacsiga la xiriira. gabadha Maria still misses aad bay ugu xiistay her friends asxaabteedii back home ay kaga timiday markaasi wadankoogii hooyo ay kaga timiday. But she communicates laakiin waxay ka xiriirisaa with them iyaga very often alaaba over the internetka ayay ka xiriirisaa. often waa alaaba ama badiyaaba over the internetka ayay ka xiriirisaa. mareegta internetka baraha bulshada kala duwan ayay ka xiriirisaa. She is very happy aad ayay u faraxsan tahay now imika. She is very happy aad ayay u faraxsan tahay now imika. She is looking forward waxay rajaynaysaa waxay quudaraynaysaa to an exciting future mustaqbal ifaya. She is looking forward waxay quudaraynaysaa to an exciting future mustaqbal farxadi ku dheehan tahay ayay rajaynaysaa. Where the reference is grade 7 Somaliland syllabus. Okay, answer these questions below. su'aalahan ka dambeeya historyga hadaba ka jawaab oo isku day inaad ka jawaabi karto. Where was Maria born? halkeebay Maria ku dhalatay? Where xageebay was Maria born? Maria ku dhalatay. Did she grow up in a large city? miyay ku kortay magaalo aad u weyn? Did she grow up miyay ku kortay in large city magaalo aad u weyn? When did she begin school? goormay bilowday dugsiga? When did she begin school? goormay dugsiga bilowday? What happened maxaa dhacay when markii Maria was 17 years old ay ahayd 17 jir? What happened maxaa dhacay when markii Maria was ay ahayd Maria 17 years old 17 jir? What is Maria's occupation? maxay tahay shaqada Maria? What is Maria's occupation? maxay tahay shaqada Maria? What is Maria's occupation? waa maxay shaqada Maria qabata? What does Maria unhappy when she arrived in the United States? What does maxay bay Maria unhappy inoo faraxsanayn when she arrived markay timid in United States? waayahay sabab ama maxay ayayna u faraxsanayn Maria markay timid United Stateska? How does Maria sideebay qaabkeebay communicate u xiriirisaa with her friends asxaabteedii back in home ay kaga timid markaasi wadankeedii hooyo? How does Maria communicate with sideebay ula xiriiraa Maria her friends asxaabteedii back in home ay kaga timiday hooyigii markaasi ay deganaan jireen hadulkoogii hooyo? Okay, you will answer these questions. su'aalahaas ayaad isku dayi doontaad ka jawaabi doontaa insha Allah. This is the last day of our lesson. halkan waa dhamaadka cashirkeena. Thank you very much. See you again my students.